haddii aan aragna in la yiri Soomaaliya waxa ku kaydsan in ka badan 110 bilyan oo fuusto oo kayd saliid ciiriin ah waxa isweydiin mudan ma jiraan khubaro Soomaali ah oo arrintan wax ka tiri runtiina muuqaalka hore wuxuu idinku dhaliyay su'aalo badan oo u baahan in la faahfaahiyo aan dib idin celiye sahanka shidaalka Soomaaliya wuxuu bilowday 1960meeyadii wuxuuna socday ilaa 80meeyadii shirkadihii sahanka sameynayayna waxay ka tageen ciilal ay natiijo ka gaareen ilaa haddana iyaga u xiran shirkadihii lahaa xirmooyinka ay horay u baareen walow ay ka maqnaayeen 30 sano ka badan misna wali waa ay haysteen oo leeyihiin dhulkii xirmooyinkaas walina way ka bixiyaan kiradii oo awal lagula heshiiyey halkii kiiloomitirba $1 soo kabashadii burburka kadibna 30 sano ayay isku bixiyeen kirooyin isgaargaaray sida uu sheegay gudoomiyaha hay'adda petroolka Soomaaliya shirkadahan cusub ee sahanka sameynayna sida Coastline waa shirkado cusub oo sahan ku sameynaya aagag ama xirmooyin cusub oo hor leh meelihii horena aan ahayn sababta ay shirkadihii hore wax u soo saari waayeen waa dalka oo galay xaalad burbur iyo khilaaf ah oo xilligii ay shirkadahaas shaqaynayeen waa 80meeyadii shirkaduhuna malaha way odorasi kareen jihada uu dalku qaaday si aan xog faahfaahsan uga helno wixii la helay iyo rajadii 80meeyada waxaan idin hayaa waraysi uu bixiyay adeer Soomaaliyeed oo magaciisa la dhaho Abuukar Xaaji Maxamuud waraysigana uu siiyay TV-ga kalsan 8 sano ka hor Cali Xaraarana uu ka qaaday waxa uu ku bixiyay xog badan oo ka dahsoonayd Soomaalida odaygani wuxuu ka tirsanaa xafiiska xogta iyo isgaarsiinta shirkadii Shell oo shidaal ka baaraysay Soomaaliya xilligaas xafiiska noocan ah waa meesha ugu muhiimsan maadaama uu yahay barta ay xogta ku soo dhacaysay la isaguna keenayay riboortiyadii geologistiyaasha iyo injineeradii petroolka wuxuu sheegay inuu goobjooga u ahaa ceelal laga helay shidaal 100% ah kuwa loogu tagay saliid dhimatay oo yaacday iyo kuwa ay uga carareen xaalado amni iyaga oo 90% wax ka badan rajo ka qaba wuxuu uga jawaabayaa su'aalaha madaxaaga ka guuxaya haddii aad tahay qof raba inuu xog badan ka ogaado khayraadka shidaal ee waddankan sidaa darteed waa inaad u dulqaadataa daqiiqadaha yar ee uu soconayo waraysigu haddii kalena way jiraan muuqaalo aad u qosol badan oo ka buuxa baraha bulshada aan idin kala dhex buuxo daawadayaal dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan in Soomaaliya marka laga hadlayo khayraadka ku jira gaar ahaan shidaalka oo kale in aanay jirin haba yaraatee shidaal Soomaaliya maanta lagu sheego oo rajo weyn laga qabo dad kale ayaa iyana aaminsan in shidaal fara badan uu eegaago dhulka Soomaaliya warbixinaha qaarkood ayaa ku tilmaama waa kuwa caalamka in ilaa iyo 110 bilyan oo barmiil ama foosto ay ku jiraan dhulka Soomaalida haddaba su'aalahaasi jawaabtooda ayaan rabaa in isla waraysigan xogtiisa in aad ku heshaan bal waxa shidaalka Soomaaliya ka jira inuu yahay shidaal ku jira oo dhaba iyo inaanu ahayn arrin dhaba ama shidaal aanu ka jirin Soomaaliya waxa studio-da magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka martino waa Abuukar Xaaji Maxamuud Mire oo isagu dhinacayga bidix fadhiya waa khabiir ka tirsanaan jiray xafiiska xogta iyo isgaarsiinta ee shirkadaha faraha badan leh ee Soomaaliya iyagu shidaalka sahminta iyo qodaalkaba markaasi isku dayay Abuukar Xaaji Maxamuud Mire 1978 waxa uu ka shaqaynayay shirkad Kuwait markaasi ka hawlgalaysay oo Halliburton loo yaqaanay oo Mareykan ahayd shirkadaasi oo qaabilsanayd qodista shidaalka 1978 ilaa 1986 ayaa Abuukar waxa uu u gudbay amaba uu markaasi u shaqo tagay waddanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi waxa uu shaqaynayay markaasi shirkad lagu magacaabo Sabata North Sea Inc oo uu ka hawlgali jiray taasi oo hoos yimaadaan shirkado fara badan oo caalamka shidaal ka qoda markii dambe waxa uu isla sanadkaasi 1986 weeyaan uu u gudbay Abuukar waddanka Soomaaliya waxaana uu markii ugu horeysay ka hawlgalay eelka baar dheere oo xilliga shidaal laga qodayay waxyaalihii uu kala kulmay iyo wixii uu ku soo arkay dhinaca shidaalka dhulka Soomaalida ayaa uu inooga warrami doonaa marka horese Abuukar Xaaji Maxamuud Mire aan ku soo dhaweeyo studio-da magaalada Minneapolis soo dhawaad Abuukar marka hore Cali Xaraare waad mahadsantahay thank you very much inaad isiisid fursaddan wixii aan ka ogahay waddankeenii in ay dadka wax ka ogeysiiyo inta anigu aan ogahay in ay dadka Soomaaliduna ogaadaan
fursadda iyada aad iyo aad baan kugu mahadinayaa. Su-aashu waxa weeye waddankeenna batrool ma ku jiraa mise kuma jiro? Wuu ku jiraa. wuu ku jiraa Wuu ku jiraa. waaya Wuu ku badan yahay. waxaan doonayaa inaynu gudagallo oo sida wax ugu jiraan ee dhabta ah aad iga wartid waraysiga gudihiisa. laakiin waxaan doonaya ka bilaabo markii aad ka timid wadamada khaliijka carabta ee aad soo gaadhay Soomaaliya. sidaad ii sheegtay 1986 waxaad ka howlgashay ceelka Baardheere. ceelkaas muxuu yahay Abukar? Caliyow, anigu markii aan waddanka imanayay waxaa anigoo u shaqeeyay shirkadda Sabata North Sea waxaa i xotay shirkadda la yidhaahdo Shell oo Soomaaliya ka heshay contract qodis ah. dabadeedna anigoo aad u interest garaynaya inaan ogaado waxa dhulkeena ku jira, shaqadaydii waan ka tegey Sabata. Shell baan soo raacay. Shell baa horta i keentay Soomaaliya. way markii aanu nimina waxaanu bilownay 1987 bishii February qodista ceelka ku yaala 60 kilomitir Baardheere iyo Faafxuun dhexdooda. haddii aan kaaga warramo ceelkaas, shirkadda qodaysay waxay ahayd Shell Holland Shell oo waddanka Netherlands oo waddanka oo dowladda ah way ayaa qodaysay. runtii nimanka qodayay qayb ka mida xitaa Abu Dhabi aan ka wada shaqaynaynay, oo markii aanu isu nimi waxaanu iska helnay qaar kale oo kuwii soo kaxaystay mooyaane kuwo kale oo xitaa ku arki jiray oil field. ceelkaas 1,000 mitir wuxuu ahaa 4,000 oo mitir in la qodo estimationkiisu. 900 oo mitir markii aanu maraynay gaas baan ku dhex dhacnay. way dabeedna waxay noqotay in safety la galo oo laga kala cararo ilaa la xidho gaasta, waayo kambanigu gaas muu doonayno. marka halkii aad batroolka uga geli lahaydeen baa gaas baanu gaas u galay. ayaad gaas u gashay? haa, batroolkii ma dhowa. gaastu Abukar ma tan la shitaaye wax lagu karsan? natural gas. natural gaska haa, waa gaaska dabiiciga. waa gaaska dabiiciga. waaye intaa kadib maxaa dhacay? waxaa dhacay ceelkii waanu qodnay waa dhaafnay gaastii, way xidheen, waa la xidhay. waxaa dhacday ceelkii wax badan baanu kala kulannay oo dhib ah. 3,920 markaan 55 markaan maraynay mitir oo 45 mitir noo harsan tahay yaa waxaa isku dhacay wasiirkii maalinta iyo biyaha Soomaaliya ee xilligaa iyo wakiilkii u joogay kambaniga Shell. maxay isugu dhaceen? kolleyba wax aan dowladdu la ogeyn wasiirka way ayuu ula tegay shirkadda. way shirkadduna waxay shirkad dowlad may ahayn kambani. shirkadaha dowladahu leeyihiin waa conservative oo qodistaa wax aan ahayn kuma soo tala galaan ceelkaa inay ku baxaan. marka halkaasay ka bariiqatay. warkaagu si uu taariikh ugu noqdo dadka Soomaaliyeed ee jiilasha soo sida Abukar. nacam. markaad cadaysid maadaama ay tahay waqti la soo dhaafay. nacam. taariikhdu waa lama huraan, waxay noqon doontaa wax meel yaalla oo dib loo eego. nacam. wasiirka waxay joogtaa xafiiska xogta iyo isgaarsiinta adigu. waa gartay. wasiirka iyo maxay isku qabteen kambanigu? waxay isku qabteen commission buu weydiistay kambaniga. waaya haddii kale operation ku socon maayo ku yiri. ama waa in lacag la siiyaa ama waa in lacag shidaalkii la soo saari maayo. ama waa in lacag la siiyaa. waaya haddii kale operationka aad ka wadaan waad joojinaysaa. waaya dabeedna gabadhii yaa waxay yidhahdeen annagu kumaanaan soo talagelin, kambanigan waxaa iskale dowladda, fan ma bixinno iyo lacag laaluusha ceelkaa wixii ku baxa
yaa anagu estimationka waxa budgetka iyagu waa wixii ceelka ku bixi lahaa marka batroolkii dhammaa ee 4,000 ee mitir la soconaya waxaa idinka dhiman 45 mitir weliba inuu nagu soo boqdo aad bay halis u tahay marka iyadaa sababto waxa weeye waxaa yimi nimanka qarxiya ceelasha batroolka marka la qodo kambaniga qodaa marka uu meel marayo waxaa yimaada kuwii qarxinaya marka la ogaado in ay 100% uu batrool ku jiro waxaa yimaada dad la yidhaahdo fellow batrool iyagaa ceelka markaa qarxiya iyagaa sheega inta uu maalintii soo saarayo batroolku nooca uu yahay inta sannadood ee uu productionka intaa la eg samayn karayo nimanka sheega oo fellow batrool loodhan jiray way keensadeen qalabkoodii oo qaali ah oo habeen hadday u hoydaan meesha aan kambaniyadu xamilin way yimaadeen inay ceelka qarxiyaan oo production la bilaabo waay nasiib darro joojiyaana lagu yidhi amar baana lagu siiyey waay halkaa markay maraysay Holland waxay kala soo hadlay nin madax ah oo executive secretary-ga Shell Holland wuxuu ugu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ninka company maanka ee meesha jooga labada telefoon waxaa horreeyey kaninkaa madaxda ee Holland iiga soo diray ayaa soo horreeyey wuxuu ugu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ceelka waxaa loo bixinayaa Vortex 1 in Africa waay baadheera 1 lama yidhaahdo buu yidhi Vortex 1 baa la yidhaahdaa Vortex 1 sida aan taariikhda ku hayay wuxuu ku yaalay badda North Sea ee Scotland waa ceel aad u badiya oo batroolkiisu aad u badan yahay marka Vortex 1 baa lagu mataaneeyey oo Scottishku ay leeyihiin marka taa waxaa loola jeedaa sida ceelka Vortex 1 ee Scotland ka dhisani uu shidaalka u soo burqado shidaalka soo badan yahay nacam ayaa kan baar dheereen u badan yahay waay ka soco in Africa baa leeyahay waay Vortex 1 telefoonka lagu soo sheegay telefoonku igu soo sheegay waay anna waxaan ugu sheegay ninkii company maaka waxaan ugu sheegay isagoo site-ka jooga waxaan ugu sheegay walkie talkie radio okay intaas markay dhacday muqdisho lagala soo hadlay waxaa laygu yidhi operationka joojiya dirilinka joojiya una diyaar garooba geedi iyaan meesha soo kacdaan amarka ayaa ku siiyey wasiirka miyaa mise cid kale kula soo hadashay maya waa shell gudaheeda shell baa lagu siiyey amarka waxaa lagu siiyey muqdisho marka sheeshii muqdisho idinka baa annaga noo soo gudbisay maxaa ku xigay intaa waxaa ku xigay wasiirku warqadii uu u qoray ninka iyo sheekooyinkii dhex maray iyo lacag yaroo la siiyey silibkeedii iyo wixii information ahaa iyo tuu ku joojiyey operationka waxaa ii soo diray gabar secretariyad u ahayd ninkii wakiilka Shell uga ahaa Soomaaliya dabeedna warqadahaasi dowladda ayay dib ugu noqdeen isla mar ahaantaa ninkii wasiirka ahaa waa la eriyey muddo bilka yar gudaheed ayaa lagu eriyey markii la ogaaday inuu dembiga intaa leeg dalka ka galay markii la eriyey idinku ma ka guurteen waaye ka guurnay kambanigiina teg waaye marka wixii waa isla dhinteen wasiirkii shaqadii baa laga saaray kambanigiina meesha buu faraa ka qaaday waaye ka gudub baar dheere gaaska meesha batroolka ku jira baa rabaa in yar in dadweynaha u iftiimisid percentage-ka intuu ahaa 100% rajada la qabtay inuu soo baxo batroolkaasi adigu ii sheegay 45 mitir oo qura inaad u jirteen iyo nooca batroolka balada in yar igu noqo maxaa ku sheegay aliyow batroolku ilaa uu soo baxo noociisa lama sheego oo lama garan karo nimankii sheegi lahaa laakiin way joogeen waay intaa marka loo gaadho ceelkuna halis wuxuu u yahay in uu qarxo marka wixii la saari jiray ceel batrool ku jira oo batroolka celin jiray batroolku wuu xoog badan yahay ila cidima soo jiiday isagaa soo booda wixii celin jiray batroolkana waa la saaray oo lagu xidhay marka tegaysan may intaanan xidhinba ee aan qodista aanan ka samrin si aan ku soo burqan si uusan noogu soo burqan waan gartay rajadiisuna waxay ahayd
boqolkiiba boqol ayahay ayay ahayd. waa hagaag ceelka baardheere intaanu kaga gudubno maxaa idin xigay xagee tagteen ceelka baardheere markii aanu ka gudubnay oo ay sheel tagtay waxaa imanaysay Konoko. anigu intii u dhaxaysay Konoko iyo sheel waxaa la shaqaynayay company survey oo lagu wareejiyay ilan shell inay abdabay igu celisay iyo in aan dhulkayga joogo oo kamariyada Mareykanka u shaqeeyo waxaan doorbiday anigu inaan Soomaaliya joogo oo aan ogaado topigan isaga ah. marka company loolan jiray Western Geophysical ayaa lagu wareejiyay oo isagu laakiin survey ah. isaga qudadiisa xoga badan baan ka ogaaday dhulka ay ugu rajo weyn yihiin koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya. oo laba tiim bay ahaayeen oo qolana dhulka Nugaal Valley la yiraahdo ayay baarayeen, qolana Xamar iyo Jowhar iyo ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa iyo Baydhabo intaasay baarayeen. marka kuwa koonfureed kabaliga qaadi sheegtay Konoko aan u shaqeynaya la Western Geophysical. aniga cali ahaan aragtidayda markii ugu dambeysay waxaan ku arkay meel u dhow Sanajiif wakaha oo iyaga baaray Nugaal ha. marka masla kambaniga saabso ka wasla kambaniga way 773 iyo 778 bal ka oran jiray waa isku kambani oo hal manager bilaayeen Muqdisho fadhiya. iyagu markaa surveying ku xasa qaabsan iyagu surveying saanka qaabsan wakaha way qolada markaa u tagtay markaa xagee ka bilowdan hawshay? waxaan ka bilownay Jowhar iyo Mahaday way ilaa waxaan soconnay meel la yiraahdo Ijamxaad oo Kismaayo area Baraawe ka shaysa Baraawe iyo Kismaayo u dhaxaysa ilaa halkaasaan soconnay. marka waa meesha markii ugu dambeysay dhulkii la calaamadiyay anagoo u guurno degnayo ceelkii ka qodi lahayn uu dalku burburayba. marka ceelka aad tagteen meesha Jowhar iyo Mahaday ilaa Baraawe iyo Kismaayo meesha iska galaan ilaa xeebta weey ilaa xeebta marka sahanka dhinaca xeebta ka sameysay xeebta iyo ilaa Baydhabo wixii ka sokeeyay leego meeshii loo rijay leego dhulkan qoryo adaafeed waxaasoo dhan waan wada mar. maxaa idin soo baxay marka? lama ogaan karo waa report ay iyagu waa survey waxa ma sheego laakiin waxaad ku ogaanaysaa coring bay sameeyaan wax la yiraahdo waxay daloolinayaan ilaa 1,000 mitir dhulka waxay ka soo goynayaan hilbur. hadhowta ceelka waxaa lagu estimate garaynayaa ciidda marka la qaaday ee lagu sameeyo la analyse garayo baa hadhowta ceelka rajadiisu waxay ku qoran tahay 65 boqolkiiba. marka sida meeshii la oran jiray waxaa la yiraahdaa sida dhul u dhow Sablaale iyo Kutwaare oo meesha magaalada maxaabiis baa ku xidhan jirtay dhul badan oo ay calaamadiyeen ceelkii oo ay markay birgeliyaan canda Juma iyo Sablaale iyo way ceelka marka ay intay number u sameeyaan birgeliyaan waa rajadiisu waa way sareysaa haddii kale way iska dhaafaan. laakiin hadday intay sibid ku shubaan oo birgeliyaan oo number u sameeyaan waa rajadiisu wax weeye waxay ka bilaabaysaa wixii statistic ka sameeyay. way ceel aan ka ahayn Baardheere oo aad qodeen ma jira waad ka qayb gashay? caliyow Soomaaliya waxaa laga qoday 5 ceel. waxaa ka horeeyay 2 ceel oo anigu aanan arkin oo joogin. ceelna Kismaayo area laga qoday 72gii meelaha 73gii. ceelna gaas buu ahaayo Afgooyaa laga qoday. labada ceel maanan ogeyn laakiin 5 kale waan ogaa. ii sheeg hadda 5 kale ceelka Baardheere hol way Kaliswan oo Garowe 16 kilomitir u jirta soo 3 ma ceelkii Luhaye laga qodayay ee ay Shefro qodaysay iyo ceelkii aan Mudul Baraawe ka qodnay. shataba
ceelka Luhaya runtii wax badan ma aanan joogin waayo dagaal baa markiiba nagu qabsaday markii waa naga qaxiyay aniga iyo gaaladii laakiin rajadiisaan ogaa oo waxay ahayd 95% 95% ka Luhaya waate ceelka hol kuwejan male oo u buuxa gaalada horta waxay samaysaa waa dafi midh cali waxaan doonaya inaan ku yara iftiimiyo ceel moqor ah oo afkaa la qoday batrool ku jiraa ma jiro dunida oil field baa jira area jirta areada waxay ku sameeyaan wax la yidhaho injection 4 meelood oo isku toosan ayaa laga qodaa 4 ceel markay ugu horeysaynka saliidda ku arkaan markaa way weeraraan oo areadaas oo dhan waxay ogaanayaan ilaa inta ay leeg tahay inta area oil fieldku marka hol waa tif weeye ceelka Garowe wax yar markii aanu qodnay oo 2500 feet oo wax yar oo aan weligayba arkin ceel saasa waxaanu gallay saliid yaacday oo dhimatay ma ay jeclaysan gaaladii markaanu aragnay dead oil ma ay jeclaysan marka waxaa lagu ogaan kari lahaa haddii ceelka sinjiif oo isaga ku toosan oo ay siman yihiin haddii la qodi lahaa baa waxaa la ogaan lahaa areadaa in batrool ku jira inuusan ku jirin laakiin nasiib daro markii loo guuray oo qalabkii qayb la geeyey konoko waxbaa ku dhacay suntaa caalamka aad ii sheegtay rajadoodu markaynu average markaynu samayno average-ka samayno ma waxay noqon karayaan 80% mise 90% in shidaal uu ka buuxo shantaa ceel laba ceel waa 100% ceel waa 85 waa 85 to 95% waa ceelka Luhaya ceelka Garowe waan ka weyn saliid way ka dhinac meel bay ka aadi ceelka Mudul Baraawe daray hol buuxa sayn kuma ana arag saliideedba intii loogu talagalay markii la qoday wuxuu noqday daray hol inuu waqtiga ka faa'iideysana Abubakar shanta caalamka aad tilmaantay bari ka maalin ardayno labadana waa israacno meelihii ay ku yiileen ceelashaasi may geyn kartaa ma oran kartaa ceelkii Hebel aan ka sheekaynayo waa kan ceelkii Baar Dheer waa kan ceelkii Sunjiif waa kan kii Luhaya waa kan haddii caalam wax ma ka garan lahayd haddii calow la yidhaahdo gud Marshawle inuu mari ceel walba ama aan ku tago ama gaadiid ku tagee ku dul taagaya حتى هذا نفتي جرين ودلوت فعلوا قرن ودلونا سفي عنو قرنين كمبنيه قضي مد بولين مد حارين نمبر ما كو قرن wax calaamado aad ii sheeg karto wargista calaamad bay leedahay oo aad ku garan sameeyaa jirta ceelkii wax lagu arkay oo batrool ku jirayna bir weyn baa la geliyay oo la yiraahdo waxa la yiraahdo oil red oo laakiin aan muuqanayn in yarba ka soo muuqanaysa sida ceelka Baar Dheere gaaladu caradii markii ay xanaaqeen wax yar bay ciidda saa ku yidhaahdeen chemicalkii meesha yilay chemicalkuna waa waxyaabaha kambaniyada xumay ay ku baabi'iyaan dadka saddexaad oo dadii dunyada halis u ah arigii gaaladii markaa waanu isqabsanay oo 3 maalmood oo dambe ayaanu dib u dhacanay xilligii loogu talagalay inaanu tagno ilaa ceelka aad loo aaso marka ceelasha ceelka holhol isagaa sidiisa u dumay oo waxba kama soo baxaynin ugu dumay dabadeedna waa la sibdiyey birtiina waa laga taagay waay waxaan rabaa su-aalkan inaan kaa weydiiyo markii aad kambaniga xafiiska joogtay informationka communicationka badhe isgaarsiinta iyo xogta markaad fadhiday dadkaadna shaqaynaysa kambaniyadii shell ama kuwa kaba ha noqdaane
adiga ka sarkaal ahaan ka khabiir ahaan ma ku odhan jireen xogta iyo informationka ceelashan aynu qodayno ma gudbin kartid mise waad u madax banaaneenoo waxaa rabtaan baa sheegi kartid caliow halkaa hortaada markaad control roomka lagu soo fadhiisiyo iyadoo kobara bay waxay ku qoran tahay no information given out wax waro aad bixin kartid ma jirto waxaa dhacday ceelkaa baardheere ninkii georgiska ahaa ee dutchka ahaa xoogaa sheekaana dhex martay waxaan u sheegay ceelka in badrool ku jiro isagaana georgisa moogta maxaad ku garanaysaa wuu yidhi waxbaan u sheegay subaxay dambe wuu ii yimi riboortka wuxuu igu keenay oo af dutch ku qoran dabeedna ninkii kambani maanka abaan tusay oo yidhi anigu ma dutch baan ahay mise waxaan qori karaa afka dutchka ninka shaqadii waa laga yeriyey sidii ninka georgiska ahaa muxuu jeeda markaa afka dutchka waxa ku qoran iyo fahmin riboortka geological reportka yuu fahmin ninkan information ka helin ninkan waxbuu yaqaanaa yuu fahmin oo waxbuu yuu sheegi waaye su-aal kale waxaa odhanaysaa abakarow kambaniyada batroolka ka qodayay soomaaliya xilliyada adiguna aad u shaqaynaysay mudacad bay ka ahayn in shidaal soomaaliya usoo saaraan mise cag bay ku hayeen oo inaan waxba usoo bixin bay doonayeen oo hawraartii ahayd nin baa jira baadida kula raadiya inaad hesheen aan rabin oo kale ayay ka ahayd mise dowladda xilligaa jirtay ayaan idinla shaqaynayn oo aanay ka dacadahayn in shidaal soo baxo maxaa shidaalkaa loo soo saari waayey si degdega good question su-aal wacan baad i weydiisay historyga haddii dib loo raaco caliow 50 sannadood oo ka horreeyey xilliyada qodaalkan la bilaabay ayaa seerfay dhulkeenna lagu samaynayey waxa ku jiraan la ogaa kambaniyada batroolkuna ajenda u degsanoo xilliba 50 sannadood ama 100 sannadoodba dal bay waxa ku jira la soo baxaan innaga 1980 baa waxa bislaatay dhulkeenna batrool laga soo saaro way u bislaatay daacad bay ka ahayd kambaniyadii yimi waayo kambani waliba wuxuu keensaday qalabkii productionka diyaar bay ahaayeen on the other hand kambaniyada batroolku laftigoodu waa siyaasiyiin dowladdii dalka haysatay ee maxamed siyaad bare madaxweynaha ka ahaa allah u naxariistee wax allaale wax ay ka diiday may jirin laakiin kalsooni may qabinoo batroolka inay soo saaraanna way rabeen waxna way isla eeganayeenoo dalka mogtahay in odaygu baawarka ka wareegana way alsaaxad bay u haayeenoo way baxnaaninayeen wax ay ka diiday laakiin dowladdu may jirin soomaalida waxay ku sheekaysataa 50 qaatuu yidhi 50 qaadaa la yidhi kanaa la yidhi maxaa siyaad baraa diiday waxaa wax ka jiray shirkaduna diyaar bay ahaayeen dowladduna diyaar bay ahayd dadka soomaalida marka mawduucan lagala hadlayo shidaalka soomaaliya ku jira oo kale waxay u badan yihiin majoritygooda in ay qaataan dhinaca negative oo ay dhahdaan waxba kama jiraan maxaa dadka soomaalida calooliyowga ku abuuray iyo inay dhinaca negative ka qaataan oo ay dhahdaan wax meesha ka jira ma jiraan arrin siyaasadeed ba ahayd mise dadka soomaalida ba iska sawirtay inaan meesha xog jiro laba wax baa isbarkanoo caliow dadka soomaaliyeedna dad cilmi le may ahayn oo xitaa cilmiba yeelahaan dad advanced ah oo xadaarad le may ahayn cidina way shaqaynaysay niyadda ka dilaysa oo indhaha qabanaysa oo dadkani in ayan waxba ogaan ka shaqaynaysay baa jirtay wuu ku jiraadin maanta oo dhan socodsiin kari maysid dad cali oo tiraahda dhulkeena batrool baa ku jira ka dhaadhicin kari maysid weliba way kula asraartamayaan laakiin haddii la yidhi waxba kuma jiraan way qaadanayaan dadkii waaya abukar waxaa jirta dadka soomaaliyeed in badan bay dhinaca inay soomaaliya cagaheeda ku istaagto dagaalo sokeeyo in badan aafeeyey ka bacdi aanay rumaysanin in soomaaliya mar kale ay soo noqon karto ay adduunyada la tallaabsan karto oo horumar iyo dhinacyo badan waxbarashada iyo caafimaadka iyo technologyga cusub ay la tallaabsan karto amaba ay hiigsan karto
waxaan rabaa maanta inaan bushaarada ugu muhiimsan ee iminka adigu aad haysidee in gaas fiican iyo batrool fiican uu Soomaaliya ku jiro xilliga ay suurtagal tahayna lala soo bixi karo in aad dadweynaha u gudbisid oo rajadaasi quruxda badan maanta ay bal la kowsadaan iyagoo in badan aan ku jiray in bilaa rajo dhinac walba dhinaca siyaasadeed dhinaca dhaqaale dhinaca horumarineed ay inta badan la kulmaan markii iminka aad ka hadlaysay mawduucaasi batroolka Soomaaliya ku jiro ceelasha Soomaaliya laga helay iyo markaan isu qaybiyey populationka Soomaaliya ama tirada dadka Soomaalida warbixinaha caalamka markaan ku daro oo tilmaamo 110 bilyan oo foosto in ay Soomaaliya ku jirto eegaagan tahay Soomaaliyana 10 milyan ilaa 15 milyan oo qof laga dhigo dadka meesha jooga waxa qiyaasii soo bixi karta haddii dadka 18 jir wixii ka weyn da'dooda inay heli karayaan sanadkiiba $100,000 Mareykanka haddii si cadaalad iyo xaq loogu qaybiyo anoon qodobkaasi ka ordhacayn taladaada ummadda Soomaaliyeed aynu barnaamijkan soo gabagabeynay maxaad soo jeedin lahayd oo rajada shidaalka ku saabsan tafadal waxa weeye runtii waxay cagta la gelaysaa arrin siyaasadeed laakiin shacabku inuu wixii uu ogaanayo siyaasadeeyo maaha waxa weeye wixii uusan ogeyn ee uu ogaado ee uu isagu leeyahay inuu ku mintido oo uu ku khasbo xitaa ciddii markaa hoggaan u ah ama liidar u ah in ay awoodda saaraan dadkaas horta shacabka baa iska leh laakiin anigu waxaan ku odhan lahaa ummadda Soomaalida gobollada sida gobollada mudug oo kale gaaladu markay ka sheekaysanayaan anigu iyadoo luqadayana maan arkin bugaagna maan arkin laakiin gaaladu markay ka sheekaysanayaan waxaa jira buug weyn oo la yidhaahdo IADC buugga waa buugga wax ku qori jiray meel kastoo aan joogay waxaa lagu qoraa ceelasha la qodayo riboodkooda waxaa ku sawiran meeshii batrool ku jiro ama macdan ku jirto iyo magaceedii baa ku qoran galmudug dhulka la yidhaahdo oo dhan waa uranium bari markaad halkaa u dhaqaaqdin ufayn iyo baargaal iyo xagga isdharoor iyo barigaasha markaad tagtid waxaa ku wada yaalla bartii casayd oo saa ugu goobaaban oo waa ku jira nugaal valley ilaa meesha la yidhaahdo buraan saasaa iyadoo gooba ay ku taalaa bartii casayd iyo calaamadii dhinaca badda waxba ma leedka sheegay in gaaska badda laga wado waxaan anigu ogahay oo aan 3 bilood la socday laamo iyo muqdisho inta u dhaxaysa 3 bilood markaa Western Geophysical la shaqaynayay qayb iyaga ka mid ah oo laakiin magac kale sidata oo badda baadho oo Bakten baa loo oran jiray shirkadda Bakten baa loo oran jiray 3 bilood baan la socday oo markab saarnaa waaya yani aqligaaga askeen kari maayo nimankaas rajada ay meesha ka muujiyeen iyo board ay ka qoreen badda ta ku jirta baddaas anoo ka raacay berberada yuurad waxaan arki jiray riig aan ka fogeyn berbera oo badda qodanaya shaqaalihiisuna uusan Soomaaliya joogin taariikhdiisa historygiisa iyo kontraktkiisuna uusan Soomaaliya gacanta ugu jirin Djibouti baa laga iman jiray marka wax badan oo kama hayo practical oo aan sheego xog waaya وهاجا أدياد أياد مهتم تاي كاسنا وحوها داوديال أبو بكر حاجي محمود مره أو يسوها خبير أما السركال لنا حفيز كحكت يسكارسين تقابل سنة شركة هي أما كمبنية دي لنا شيدال كقودش تودا يقول بس سهمين تودا با وشوي ودن كالصوماليا قارعنا وحاو مركب وركسو بلا بيكون يسقى بقولي استيدي تواتن كسيدي هربان دكو شاقي شركة لغو مقعابي جري هالي بورتن أو مرايكن هايد أو مركاسي شيدال كباريسي ودن كويت intii ka dambeysay ee ahayd 1978 ilaa 1980 waxa uu joogay wadanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi oo Sabata North Sea Inc company la markaas uu shaqeynayay isla Abu Bakar weeyaan 1980 waxa uu yimid eelka Baardheere oo markaasi rajo wanaagsan laga muujiyay in shidaal soo bixi karo hase yeeshee sida aad waraysigiisa ka dhadhansanayeen khilaaf dartii markaasi loo baajiyay tan iyo kulankeena dambe daawadayaal waraysi kan oo kala inta dib u kulmi doono
waa cali xaraare oo dhammaantiin ba idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo aad iyo aad baad mahadsantahay abukar aad baad mahadsantahay thank you very much waqtiga aadna siisay iyo sida wanaagsan ee faahfaahinta leh ee aad ummadda Soomaaliyeed ugu soo gudbinaysid in rajo wanaagsan dhinaca shidaalka aad baan ugu faraxsanahay inaan intaa aan ogaa Soomaali gaarsiiyo aad baan mahadsantahay